بريان سوشيال ميديا waxa ku jirtay sheeka Morocco haweenka Moroccanka rag Soomaalidu xaga tagayaan Morocco soo guursanayna habla ganaas ka war adu Morocco ma socota wallahi horta marka run la eego maaragtay waxaas iska ku tiri ku tambay haydo qof baa intuu meesha tagay barnaamij ka soo duubayo wax de 2 weeks social media dhex wareegay qof kasta platformka ku kacsoon bay ahayd moog cid Morocco socota horta oo aan anigu garanaya ma jirto aniga iga de baasaboorkayga waa caadi waan rifle watay karaya laakiin Morocco de anu barnaamij ka soo duubta kale ma hablihii Soomaaliyeed ba buuxa waxaan ku yiri guri kasta deena baa joogto ka soo kacda maxaan gabadh Moroccan ku falaya anigu gabadha aan dhaqankeeda garanayo diinteeda garanayo asalkeeda iyo isirkeeda ba garanayo ayaa anigu guursanaya waligeena horta kuma fikrin dadka qaar baa ajaanib ku fikireen inay guursadaan oo dhaha hablaha Soomaaliyeed ajaanibka ka wanaagsan ajaanibka ma ogtahay ka aqli badan waxaas iska waa wax ma ogtahay hablaha Soomaalida naga badan badlada exactly meel kasta way joogaan hadaad u baahan tahay inaan Soomaaliyeed inaan guursado carruur dhasho that's my dream ilaahayna wuu gaarsiinaya insha Allah ta'ala hablaha Soomaaliyeed waa big love safaradaadi safarkii ugu xiisaha badnaa aad u baxdo safarkeeba wax xasuustaa wallahi safarkii ugu xiisaha badnaa ayaan baxo waxa safarkii Shalcaw magaalo Shalcaw la dhaho ku taala dadku ma yaqaanaan magaalada I think mala inta qof ay tagtay waa farakutirisa waxa ka soo duubtay barnaamijyada YouTube-kayga ugu view badan ayuu ku jira videogaasi Shalcaw waa tuulo yar oo waxaan ku yiri ilaa waxa ka dhisan 5 garanaysa guri 5 guri kaliya 5 guri iyo meel yar oo waxaan ku yiri ay joogaan qolo ma garanaysa marka meesha ilaaliya oo laba askariya meesha Shalcaw waa meel base telephone 5 عشان joogay internet iyo call telephone midna ima shaqeyneen marka meesha waa meel xeeb xigta oo aanay inta badan de ciidaba ka warhayn marka dad kalluunka iska cunaan yani wax soonaysa dabiiciga ku noolin ifan waxaan weydiiyay su'aalan weydiiyay dadka waxyaabo ugu la yaabka badan ma oga waqti xaadirkan cida madaxweyne ka wadanka ma oga yani halka nolosha wadanku marayso marxaladda isgaarsiinta waxbaba kama warhayaan qaasoo kuma jiro waa magaalo yar iska biisa kalluunka inta badan Yamaniyiin baa u timaada oo kalluun iyo waxa uu keenta markaas iyana waxay kaga bedeshaan oo kale siiyaan like dahab iyo waxay siiyaan foox iyo beeyo waxaas waqtigii isticmaalkii hore ma garanaysaa waxaad moodaysaa bad inay Soomaali kale yihiin inay nool yihiin 1954 si fiican way soo dhaweeyeen habeenkii markaan meesha joogay waxaan ku yiri meel fiican baa lay goglay maalinkii marka hilib meesha ma jiro kalluun weyn baan soo dabanay badan galnay kalluunkii baan qalanay waan cunay meeshii adana laash baan ka haysanay laashkii markaan ka haysanay meel yaro qooriya baan tagnay meeshii waan wax ka soo duwan soo noqonay ka oday kamida odayaasha meesha ayaa wuxuu yiri dhulkaas maaragtay adaan ku siiyay dhulka qaado waxaan ku dhulkaas ka kays mustaqbalka hadii ilaahay wax siiyo waxba ka dhigayaa bal faylkii meesha ay siisay waayo cirgaabo soo gagabiyay marka waa gobolka bargaas ka iibiba laakiin waa ku dhaqanaya Shalcaw sanaag bay kamid tahay gobolka sanaag marka dhaafto ma xagga xiis biyaas marka dhaafto ayaad galaysaa dhinaca xeebta xigta mar walba xiis marka iyadu waxay xigtaa dhinaca koonfurta iyadana dhinaca berberay soo xigtaa Shalcaw xagga berbera hadii laga tago way dhowdahay inkastoo de ay saacado badan qaadanayso laakiin waa dhulka jasiir waa badda dhexdeeda ma aha badda dhexdeeda kuma taale dhulkan caadigeeda xeebtay ku taala dhulka xeebta ku taala badda caadiga kuma taala insha Allah warjeynaya meeshaan tagno meel aad u qurux badan sida sheegayso waa meel biisa ma sha Allah safarkaas waa safarkii kugu xisaab igu xisaab badnaa de iguna inta dalka dibadiisa ka war aan ka nastay social media call yani subaxii waa soo kacay jawiga iyo quruxda iyo baddaas iska dabaalanay kalluun oo cunaynay oo soo noqonaynay yani dhaqankii dadkii hore laga sheekeyn jiray ayaan caadi u soo arkay safarada dibadda ka hor safarada kaas waa kii gudaha oo wadanka gudihiisa safarada dibadda safarkii ugu xasuusta badan sayna wallahi wuxuu ahaa safarkii Tanzania waxa weeyaan waa meel horta aad u qurux badan oo nabad ah waana wadan ma sha Allah dhaqaalihiisa iyo ma garanaysaa dadkiisu ba dhisteen ka war quruxda iyo deegaanka
quruxda nature-ka Kilimanjaro ku taala buurta Afrika ugu dheer هذه buurta ilaa noomay suurtagelin inaan fuulno waayo waxay qaataa 5 cisho in la fuulo in laga soo degaana 5 cisho qaataa هاي marka waa inaad 3 bilood ka hor sii orodaad training sii gashaad u sii diyaar garooda waayo dad badan baa sometimes ku dhinta yani 5 cisho kor loo koriya 5 cisho kor loo koriya 5 cisho laga soo degaya marka waa buur taariikhiya hoosteedan tagnay aniga qays safarkii berigi dhowt 3 bilood waxay 5 bilood ka hor bay ahayd marka Zanzibar iyana waa tagteen dee Zanzibarna waan tagnaa laakiin meeshii ugu la yaabka badan halkaas ay nin Soomaaliyan la kulubnay oo halka ku haysta geel fara badan oo waxaan ku yiri 70yadii meesha gaadhay oo waxaan ku yiri ari ku dhaqda caruurtiisii halka wax ka barteen isagii halka ku nool halkiisa ku cibaadeysanaya dhaqankii iyo Soomaalidii iyo soo jireenkii haysta ahna qofkii ugu horeeyay meesha geel geeyaba geel bageeyay ma sha Allah marka waxaan ku yiri way isugu fadhiday dhinaca kale waxaan tagnay meel kale national park oo xayawaanka adduunka oo dhan joogo waxyaabaha caanka ku tahay Tanzania kamid tahay dadku u soo dalxiis tagaan xayawaano kala duwan waxaan ku yiri dhul ilaa iska leeg Hargeysa dhan oo xayawaan iskaga dhaxareysan yahay gawaari baad qaadanaysa oo dhex maraysa marka wallahi meel waxay ma sha Allah ajiiba ka waran marka libaaxa iyo waxa soo khatar kuma gelin karaan hadaad uga dhex maraysa may wallahi libaaxa gaari baad saaran tahay gaariga hareeraha oo dhan shabag baa kaga xiran xagga sare ayaa laga furaa gaariga madaxaad kala baxaysa lama ogolo inaad banaanka istaagto waa in legal waa lagu ganaaxaya lacag ganaax badan baa laga qaadayo lacag marka waxa weeyaan inaad halka ka daawato oo soo eegto libaaxu iska kaag maraya xayawaanada kale iska kaag marayaan marka waxba kuma dhibaateynayaan way la qabsadeen dadkan soo booqanaya waxaan cuntona way helaan iyagaas ugaarsada mar la okinsida baashaasi eriyadaan ay cunaan marka waa xayawaan yani noloshiisa iskaga nool aad wallahi horta dee meelaha kale kugu dhalatay meelaha iska joogtidba wadamada kuwaad maraysid mar baan Turki joogay horta 4 bilood waxaan islahaa bal iska joog halkan muddo sanada laakiin mar horta marnaba iguma dhalan inaan yani wadan qurba oo kale aan joogo yani ama aan ka soo shaqeysto aan muddo joogo laakiin inaan lifetime-keyga oo dhan aan ku qaato marnaba iguma dhalan meelo badan baan arkay niyo kelinima dareemaysa marka maaragtay waxaaga dhameysay barnaamijyadaada Hargeysa marka timaadana waxa dareemaysa marba qof baad u tagaysaa asxaabtaadii mar family-gaaga baad dhinac uga tagaysaa mar dhinac barnaamijyo iyo waxaad ka helaysaa yani shaqooyin iyo ma sha Allah laakiin meelaha kale opportunity ma yaalo shirkadu ku siinayaan opportunity ma yaalo yani cid ku caawinaysa qof kasta tiisi baa cuslaysay waa wadamo gebigood waa cirkaas la marayo dabaq iyo dhaadheero waxaad hadda soo daawato qalbigaagii baa soo yani dadkii iyo dalkii markaad xasuusato wax soonaysa waniyo maskaxdaada oo halka levelkay taagantahay maaragtay yani waxa weeyaan levelkii garanaysa aad dadkaaga ku dhex noolayd dadkaaga yani aad la aragti ahayd halkan hadaad soo degto waxaad ka fikiraysaa kiro kale waayo wada qaali walka kale waxaad ka fikiraysaa oo kale yani noloshii baa yani laakiin halkan opportunity-ga wadanka yaala waxa weeye lacagna waan sameeynaya guri hadaan maanta dhisanayo waan dhisan karaya hadaan maanta dhibaato igu timaado dadkii iyo asxaabteedii baa joogto waa leeyahay xalinaya laakiin halkaas ma jirto yani markasta noloshu way adag tahay warwar baad ku noolaanay marka nolosha warwarka maxaa ku gelinaya wada dalkaaga si nafis ugu noolaan karaya anigu dadka dalka waan leeyahay dalka ka waran safarada maxad safarka dhulka mise safarka badda mise gabadh jecesha inaad ku safartid ka badda iyo ama diyaarad ama gaari ama safarkeeda jecesha wallahi horta safaradu way kala duwanaayeen markii hore taana diyaarad raacin ka hor diyaaradaha waa ka baqi jiray wax soo jirnay armay marun kula dhacdaa armay yani diyaaradaas yani diyaaradana lagama badbaado sidoodaba gaariga laakiin hadii uu dhaco xitaa waad ka badbaadaysaa ama waad ku dhaawacmaysaa ama waad dhimanaysaa laakiin diyaarad laga badbaado qof ka badbaado weliga ma maqal badoo kale iyada taa kama boqo sometimes baddu laftirkeedu risk bay leedahay marbay kacsantaho cirka iyo samada ku tuuraysa oo garanaysa Allah naxariista abaay baa mar nooga sheekeeyay maruu Yaman ka yimi oo halka alaab ka soo iibsaday bagaash iyo waxo markaa sanaa ku soo siday ayaa mawjada ku kacay habeenimad baa ahayd saqdhexe waa madowgii cirka madowgii badda iyo waxaan ku laba gudcur baa isqabsaday waxba wala arki waayay biyuna saasi u qaaday doonta waxa lagu khasbay inay alaabtii siteen oo dhan daadiyaan ilaa dharkiisii
waa la daadiyey safarkii dhamaa carab baa markaa doonta wadatay dee naftoodii baa Si loo magarasa halis badbaadiyo, gashay aad iyo aad. marka laftarkeeda badda maaragtay halis way leedahay laakiin hadda waxaan ka baqaa waqti xaadirkan gawaarida shilka gawaarida batay Haye. dhalinyarteennuna si xun bay gawaarida u wadaan yacni tartan mooye cid daawanaysa tartan waxay ku jiraan aynaan garanaynba Waddooyinka way lagu yaacayaan yidhi. haddaad mararka qaar waa la yaabaa markaan uu safarada gawaarida oo kale hadda waa ka yara baqaa waxaan eegaa qofkani qof mas-uula ma yahay Ayaa markaas oo marka- kale safarka waa raacay qadartu waa meesha waa min allaahi moogta qadarta ilaahay baa haya Aad iyo aad. laakiin haddana taan aadka uga baqa waa safarka gawaarida diyaaradu waa iska waa hadda caadi inta badan waa safe waa iskala qabsaday ka waran xagga asxaabta saaxiibkaaga ugu dhow waa kuma wallaahi horta asxaabtaydu waa mid walba saaxiib mid walba wuu ii dhow yahay laakiin saaxiibka marka aan aad oran xoogaa karo- yaro dareento ama wax emergency aad wacdo ama kugu soo dhaca ni waxa weeye horta ninkaasi waxaa la dhahaa mustafa axmed yaxya dadku ma yaqaanaan waa nin horta isagu afgaaban social media kuma jiro mustafa axmed yaxya la dhahaa maasha allah sidoo kale de asxaabteeda kale laftarkooda Asxaabtooda yani caadi- de waa la caadi- hadlaa caadi ah. laakiin ninkaa nolol badan baan soo wada marnay Caadi ah. marxalado badan baan soo wada marnay jab badan baan soo wada marnay maasha allah waa saaxiib horta aan jeclahay waana saaxiib horta igu dhiirigeliya waxyaabo badan oo wanaagsan caadi ah. oo yacni aada u cibaado badan marka waa saaxiibka halkan ku salaamina aad baa u mahadsantihiin saaxiibayaal dhammaantiin aad baan idinka mahad celinaya waqtigiina qiimaha badanna siiseen intaan barnaamij kale oo kanoo kale ku kulmi doono dhammaantiin aad baa idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Yes,